kulanti wanaagsan khiyaartan dhageysanaysa ay ku soo dhawaada barnaamijkan oo qayb ka ah barnaamijyo taxano ah oo aan uga hadlayno dastuurka qabyo qoraalka ah ee dalka Soomaaliya. waa qaybtii lixaad ee barnaamijka waxaana aalaaba idinla socodsiiya anigoo ah Ayaanle Xuseen Cabdi. waxaad ogtahay Soomaaliya markii la rabo institution in loo sameeyo wadamada dariska ah loo qaadi jiray. marka waa ilaahay mahadiis maanta in caasimadii la yiri ha lagu qabto shirka dhahaya arrinkaasi waxaan ka leeyahay dadka saxiixa laha xil culus baa ka saaran waxay matelayaan bulshadii Soomaaliyeed oo dhan waa insaan aqlawraha dhaqana islaanimo amin media wanabadilaha shaqadkeena yaqaanimo amin media intii la socotaba dhageystayaal waxa dalka Soomaaliya uu ku jira marxaladii ugu dambeeyay ee xilliga kumeel gaarka taasi oo la filayo in 20 bisha Agoosto 2012 uu noqdo marka ugu dambeysay ee Soomaaliya ay ka gudubto xilliga kumeel gaarka. odayaal dhaqameed ayaa ku shiraya magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka doodaya dastuurka iyo ansixinta xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. haddaba barnaamijkeenan dhageystayaal waxaan kaga doodi doonaa ka gudubka kumeel gaarka iyo waqtiga lagu hirgelinayo sida uu u socdo. waxaan igala qayb galaya Maxamed Axmed Daahir oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliya ee magaalada Kampala kana baxay jaamacadda Makerele ee dalka Uganda, Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ah siyaasi iyo Cabdilaah Cusmaan Maxamed oo kamid ah ururada bulshada rayidka ku soo dhawaada barnaamijka. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Axmed gudoomiyaha waxaan weydiinayaa xilliga kala guurka kumeel gaarka iyo waqtiga lagu hirgelinayo sida uu arko dhawaanahanba aad loo hadalhay. بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهاي Ayaanle Xuseen Cabdi horta waqti dheer lama haysto laakiin haddaan anagu Soomaalinaha waa dalnay oo diidma isa siimayno waxaan rajaynaynaa wax walba sida loogu talagalay inay ku dhamaadaan inkastoon time badan lahayn haddana Soomaalida dadka oo siyaasiyiinta oo xil saaran arrimahaas iyo kuwa kale toodo international community-ga amba kuwa arrimaha Soomaaliya daneeya aad bay isugu howlayaan in waqtigu sidaa ku soo gabagaboobo taas marka halka uga baxo dastuurkan qabiil qaraalka horta ilaa iyo 5 sano soo socota waa sii socod doonaya sababtoo ah waxa waaye markii la soo xulo MPyada cusub oo Soomaaliya ay yeelato parliamenti oo ay ka gudubto meel ku gaarka oo ay Soomaaliya executive government ay yeelato consecutive government ay yeelato waxaan u maleynaa 5 sano Soomaaliya 5 sano soo socota in sanad walba wax laga bedeli doono sababtoo waxaan rajaynaynaa gobollo badan oo Soomaaliya kamid ah ayaa hadda maqan inay ay ku soo beeri doonaan taas ayaana iskale in mar walba wax laga bedelo amba la sii eego. waaya gudoomiyaad baad u mahadsan tahay sidaad ka warqabtaan waxaa waqtigan kooban ee la qabtay kamid ah in 20 bisha soo socotay August la doonayo inuu dhamaado kumeel gaarka. waxaan weydiinayaa Cabdulqaadir adigu sidaad u aragtaa waqtigan la qabtay iyo hawshan socotay ee kumeel gaarka la doonayo laga gudbo. aniga iyo dalka Soomaaliya waxaan aaminsanahay arrimihiisa muddo badan bay soo socdeen dastuurkan qabiil qoraalka oo muddo soo socday oo hadda lagu soo beegay kala guurka waqtiga kala guur lagu soo beegay ma filay inuu dhamaanayo waayo waqtiga oo yar dawladii oo kale iyo iyana kala guurayso oo macnaha dawlad cusub in la soo sameeyo la rabo baarlamaankii oo wali la soo dooranin saa darteedan ana filaya in macnaha uu suurgalin waayahay waxaan weydiinayaa Cabdilaah hay adiga sidoo aragtaa waad maasan tahay Ayaanle waxaadna aan kaaga mahad celinayaa sida sharafta loo inoogu soo dhaweysay programka wallahi waxaan u maleeyaa anigu aragtidayda wax walba hadii niyo wanaagsan lagu wajaho wax baa ka qabsoomi kara hawshani hadda hortaalo ummadda Soomaaliyeed waa hawl muhiim ah waa hawl u baahan in si niyo furan lagu wajaho waqtigu waa yar yahay balse anigu waxaan qabaa hadii nin walba uu xil iska saaro oo hawshaasi uu si wanaagsan niyo wanaagsan u wajaho hawshaasi inuu wax badan ka qabsoomi kara dabcan way dhici karaan waxyaabo badan oo qabyo inay dhacaan dib ma laha waxa dib laga sixi karaa
kitaab qur'aana ma aha waxaan la samaynayo waa dastuur dad ay samaysanayaan dastuurkana had iyo jeer complete ma noqdo oo uu yeeshaa qabyo uu yeeshaa dib baana laga sixi karaa sidaan ognahay bulsho badan Soomaalida ama gobollo badan ayaa ka maqan maanta dastuurkan la ansixinayo si xitaa loo siiyo dadka maanta ka maqan fursadaasi inay dib uga soo qayb qaataan anigu waxaan qabaa in la wajaho wax badan hawshan hadda laga qaban karo ummadda hawshaasi loo dhiibana xil culus uu horyaalo ayna muhiim tahay inay xilkaasi sidii loogu dhiibtay ay u gutaan wax badan in laga qaban karo ayaan aniga aaminsanahay marka waxaad leedahay waqtiga la qabtay waa waqti lagu dhammayn karo howlaha meesha lagu xusay dhammaantood waxaan ayaan loo aaminsanahay howlahaasi in wax badan laga qaban karo ma oran karo dhammaan waa la wada qaban karaa balse in badan oo muhiim ah oo micnaha ummadda Soomaaliyeed muhiim u ah in wax badan laga qaban karaan aaminsanahay haye maxamed adiga ka war anigu intaa waxaan ku darayaa horta bini aadanku inuu wada hadlo waa cilmi marka according to my experience anigu waxaan leeyahay haddii arrintan ay dib u dhacdo eedda waxa la saaraa kuwa arrintan koordineed gareeyay sababtoo ah odayaasha Soomaaliya oo dhaqanka oo weligoorba aan meel la isugu keenin oo qolo walba ay gobol amba degmo ay joogi jirtay ayay mar qura meel isugu keeneen iyadoo workshop amba seminar aan hore ugu sii furin oo waxay ka hadli doonaan ba aan loo sheegin kadibna warqadihii ayaa lagu dhex tuuro la yiri ka soo dooda dabadeedna way isku dagaaleen marka dileedka waxa dhigay waa qolada wax koordineed gareeyay haddii wax daahana iyaga eedda la saaraya waayahay kalsoonida ku qabto waqtigan inuu dhamaado loogu talagalay 20 Agosto Cabdiqaadir mar kale ku noqo aniga ma filay inuu dhamaanayo waayo waxa weeyaan horta dastuurkan waa dastuur oo dalka uu leeyahay dalkan dastuur yeeshana waa muhiim waayo dastuurkan dastuur waa kii ilaahay subhanahu wa ta'ala azza wa jalla dastuur buu noo dajiyay dastuurkeena waa kitaabka quraan bal iska dhaafay dalka dastuur waa loo sameyn karaa laakiin goorma loo sameyn karaa way dawladda Cabdiqaasim waxa waanta oo macnaha inta la xirbineysay waxa ka sameysay tii Cabdullaahi Yusuf ha sheegin tii Sheekh Shariif baa la galay tii Sheekh Shariif ilaa 2 sano 3 sano waxa leeyahay dastuur la sameeyay walina hadda waxaan filayaa bishii 20 casha ka dhiman 20 ka in wax lagu sameeyay aniga ma aaminsanayn dastuurku in dalku loo sameeyo aad u fiican tahay oo muhiim tahay waayahay laakiin qodobada kamida ee arrimahan hadda la rabo in meesha looga gudbo waxa kamid ahaa ee la xusay ee la rabo in la qabto in odayaal dhaqameedyo Muqdisho la isugu keenay ay ka doodaan golaha ansixinta dastuurka isla markaana ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka cusub ee federaalka golaha ansixinta dastuurka waxa uu ka doodi doonaa dastuurka cusub ee kumeel gaarka kadibna waxa uu ansixin doonaa si kumeel gaar ah 20 bisha August baarlamaan cusub oo federaal ah ayaa la dooran doonaa afhayeenka baarlamaanka ayaa la dooran doonaa madaxweynaha ku xigi doona marka muddada aan haysano oo ah in 20 August ka hor la doonayo in intaas oo dhan la qabto ayaan rabnaa inaan aad uga hadalno marka la isweydiiyo xaaladda maanta aan ku jirno ma u baahannahay kumeel gaarkan in sida loogu talagalay loo fuliyo iyadoo laga khibrad qaadanayo waqtiyadii hore ee hore loo lumiyay ka badan 10 sano ee aan wadanka laga bixinin kumeel gaarka waxaan ku noqonayaa maxamed aad baad u maansantahay ayaan le horta kumeel gaar iyo 4.5 waxay ahaayeen wax Soomaalida lagu baabiinay waxayna ka yimideen Djibouti shirkii cartay marka waxaan leeyahay maanta hadiiba adduunka oo Soomaaliya u soo jeesta oo la yiri waxaan diyaar u nahay inaad meel ku gaar ka baxdiin waxa waaye taas waxaan rabaa dadka hoggaanka Soomaaliya maanta haya inay dhaxda xirtaan arintaas ay u eedoobaan sida ay uga mir dhalin lahaayeen tan kale markaad rabto inaad guul gaarto waa inaad dalka dadka u eedowdo oo wixii ka hor yimaada aad farta ku fiiqdo hadda adigu aadan law order oo jirno aadan wax ka qaban karin marka waxaan leeyahay arintaas nimanka hogaamiyaasha oo hadda metela oo dalka Soomaaliya metela how eedoobaano hana meel mariyano waaya hadda marka laga hadlo waxyaabo la rabay in la qabto maxaa noo qabsoomay ilaa hadda bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leeyahay wax badan baa noo qabsoomay Soomaaliya 22 sano iyo 21 sano waxaankaas ay dawladdan tahay maanta dil ay hidideen la muujiyo dawlad ku meel gaar in laga baxo oo ku meel gaar laga baxo oo maanta la leeyahay adduunkan uu garab taaganahay ana waxaan u arkaa in macnaha arinta ay hidideen ay muujinayso oo ay arin fiican ay tahay waan soo dhaweynaa anaga aad maxaa noo qabsoomay Cabdillaah Soomaalidu maanta waxay u baahan tahay waxyaabahan hor yaallo inay u wajahaan si kalsooni leh maadaama beesha caalamka maanta ay ku garab taagan tahay oo ay leedahay Soomaaliya wax baan u qabanaynaa eedu inay iyaga xaqooda marto ma wanaagsano waxa wanaagsan hawshu way culus tahay waan ognahay hase ahaatee haddii hawsha la guda gal wax badan baa ka qabsoomaya sidaan horeba u sheegay wax badan baa hadda qabsoomay draft baa la soo diyaariyay ognahay oday dhaqameedkii baa la soo ururiyo magaalo isugu keenay xamar on ka war haynaa
way jiraan in khilaafaad yaryar ay iska jiraan laakiin waxa dhan waxaan anigu arkaa wax yar oo laga gudbi karo in inta yar oo hadda dhiman odayaashu iyo dadka hawsha loo xil saaro howlwadayaasha ah inay si niyafayo ay hawshaasi u wada wajahaan oo ay dastuurkii meel mariyaan kadibna la guda galo sidii la soo xuli lahaa xildhibaanadii oo aan filayo waqtiga hadda la haysto in howl badan lagu qaban karo waa gartay arrintan marka aan ka doodayno ee ah ka gudubka kumeelgaarka iyo waqtiga lagu hirgelinayo waqtigan kooban haysano waa run waa arinta u baahan inaan isla fahanno oo dadkuna ay si fiican u dhageystaan waliba waxaan rabaa inaan xuso inay muhiim tahay in la ogaado in dastuurka qabiil qoraalka ahi uusan ahayn qoraal dhammaystiran oo rasmiya waayo baarlamaanka cusub ayaa dib uga doodaya ayaa la qoray oo sidaas ayaana loo sheegay maxamed haddaan adigu kugu soo laabto maxaa noo qabsamay ilaa hadda haddaan isla su-aasha hore ku weydiiyo ayaan la aad baad u mahadsan tahay wax badan baa noo qabsoomay sababtoo ah waxaad og tahay soomaaliya markii la rabo institution in loo sameeyo waddamada deriska ahaa loo qaadi jiray marka waa ilaahay mahadiis maanta in caasimadii la yidhi ha lagu qabto shirka laysugu keenay dadkii umaheeda ka tali jiro odayaasha ahay oo dhaqan ka tali jiray embiyadiya la soo xulayaa kadibna waxa waaye speaker baa la dooraa madaxweynihiina meeshaa lagu dooraa marka waa guushi koowaad oo ilaa 20 sano aan gaarna ayaan dhihi karnaa marka taas waxaan rabaa aniga oon ka dhiibanaya ra'yigayga inay Soomaalidu cafiso walaalka haddii aad u tanasusho ma ahan inaad gumowday oo taariikhda lagu qorayo laakiin bridge-ka meesha yaal ayaa laga gudbayaa marka isu tanasulan leeyahay waaya marka maxaad isleedihiin guud ahaan dadka kaliya yaanan xooga saarin odayaashan xilka la saaray iyo mas-uuliyiinta qof kasta Soomaaliya laga yaabo inuu dalka joogo ama dibadda joogo hawshan way saameynaysaa kaalinta uu ka geysan karo ama doorka uu ka ciyaari karo Cabdiqaadir aan weydiinaya sida looga gudbi lahaa waqtigan kumeel gaarka si nabadgelyana loogu tilaabi lahaa si rasmi ah bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay waxa weeyaan walaalo waxyaalo badan baa soo had maxamed ka dhawaajiyay arrimo waxyaalo badan baa qabsoomeen maanta Soomaaliya meel fiican bay maraysaa si markii la fiirino waxa weeyaan wax badan baa jira waayo Soomaaliya dhibaatadii soo martay wax laga sheekan karo maaha haddii maanta la leeyahay caasimadda Muqdisho la shir lagu qabanaya odayaashii beel dhaqameedka loo yeerayaa aqoonyahan loo yeerayaa everybody ha ka soo qayb galo leeyahay dawladdii kumeel gaar bay loo gudbay oo waxa loo gudbayaa dawlad madax bannaan oo iyada maarta iskooda oo shacabka ay noqon doono in la soo doorto oo loo gudbiyo oo gadi socodka nabadda saas loo gaar leeyahay waa arrin fiican aniga arrinta aad baan soo dhaweynaa wax badan baa qabsoome sida raggii ugu horeeyay hadalka ay ugu celcelinayaan qodobka ah maxaa qof walba oo Soomaali ama muwaadin Soomaaliyeed macnaha kaga aadan waxa aniga aan oran lahaa qof walba Soomaaliyeed waa inuu xil iska saaro ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogo sida ummadda Soomaaliyeed mid ku noqon lahayd maanta alxamdulillah 22 sano aan soo gudubnay maanta waxa inoo muuqata jadiido dawladeed waxaan leeyahay oo ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed nabadaasi maanta inoo soo macnaha muuqatay yaanan dhulka lagu darin caalamkii baa ku garab taagan oo maanta kule Soomaaliya wax qabsada waan idin garab taaganahay jaaniskaas laga faa'iideysto bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba ha u istaagaan dantooda waxaan u maleynayaa hawshu sideedaba haddii adiga iskale aad macnaha gacanta midig ku qaban sida doonayso kuuma qabsoomayso marka waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed inay hawshaasi daacad ka noqdaan hogaamiyaasha maanta hawshan loo xil saaray ee Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa hawshaasi in ay si daacad ah u daadihiyaan odayaasha dhaqameedyada meesha ku xareysan Muqdisho ku xareysan iyagana waxaan ugu baaqayaa inay iska ilaawaan waxyaabaha yaryar ee meesha ka muuqda waxaasi dib baa laga sixi doonaa bulshada Soomaaliyeed way isu imaani doontaa kumeel gaar kale ayaa looga gudbi doonaa baarlamaanka imaani doona ayaana samayn doona dastuur complete oo dhameystiran oo bulshada Soomaaliyeed u samayn doonta marka waxaan leeyahay walaalayaal gacmaha isqabsada sidaad maanta uga gudbi lahaydeen marxaladan idin hortaagan ka taliya haye maxamed waqtigu waa noo gabagabo marka waxaan ku gunaanadayaa shacabka waxa ka saaran su'aashu waxay shacabka maxaa ka saaran shacabka waxa ka saaran dadka hawsha Soomaaliya hadda wada oo wax organize gareynaya waa inay meel kasta joogaan ay moral support ay siiyaan haddoonan moral support ayna siinayno iban wuxuu aynan la wanaagsanayna waa inuu ka aamuso laakiin wixii meeshaas ka soo baxana waxa la rabaa inay taageeraan laakiin Soomaaliya waxa dishay 20 sano wixii la soo sameeyay in la yiraahdo diidnay oo dadkaba aan jaanis la siin tan kale waxaan shacabka ku boorinayaa
xukuumadda cusub oo imaan doonta in jaanis la siiyo bini aadanku jaanisoo usa siiyaa jaanis la siiyo wasalaamu calaykum barnaamijkan waxaa diyaariyey Aamil Media Limited. hadda maadaama laga hadlayo sidii looga gudbi lahaa kumeel gaarka oo loo tegi lahaa waqti dowlad dhexe la helo waxaa jira in maamulada gobolada qaarkood iyo dowladda kumeel gaarka ay saxiixeen iyo baarlamaankaba in qodobadan sida ay tahay loo fuliyo kumeel gaarka ah marka iyaga laftooda dadkii saxiixan galay maxaa waajibaad oo saaran waxaan ku bilaabaya cabdiqaadir dadka saxiixan galay waxaa weye dad badan baa kolba ayaa ka horeeyey yaa ka qayb qaatay marka saxiixan waa la saxiixa oo dad badan baa saxiix laakiin aniga ma filay in macnaha loo dhan yahay saxiixan dad badan baa ka maqan marka arrintan waxaan dhihi lahaa bal dib ha loo dhigo dhihi lahaa cabdilaahi ayaan lo waxaan dhahayaa arrinkaasi waxaan kaa leeyahay dadka saxiixa lahaa xil culus baa ka saaran waxay matalihayaan bulshadii Soomaaliyeed oo dhan waxaan ku boorinayaa inay hawshaasi ay siday tahay ay u qaataan maadaama dadkii kale ee bulshadii Soomaaliyeed maanta la gaari waayo oo balse iyaga ay matalihayaan doorkaasi inay si wanaagsan u ciyaaraan oo Soomaalidu maanta ay ka bixiyaan transitionkaas ay ka bixiyaan oo Soomaali weyn ay dib isugu timaado dawlad markii la helo dawladda dambe markii la dhiso waxaan filayaa baarlamaanka imaani doona hawl culus baa ayaga hortaala waayo dastuurkan ku meel gaar buu wali yahay iyaga ayaa laga doonayaa inay dastuur complete ay dawladdu u sameeyaan marka waxaan leeyahay ragga saxiixayaasha hawshaasi waa hawl culus waa hawl ay u matalayaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan marka waxaan ku boorinayaa inay si wanaagsan hawshaasi ay u wajahaan wixii qodobadii laga sugayay dhammaanna ay sidaatay u fuliyaan dhalishu inaysan xaggooda ka imaan waxaa jiraan hadallo badan oo farfiiqaya inay iyaga caqabada ku yihiin waxaan u malaynayaa hadalladu sida loo dhahayo inaysan run u wada ahayn balse waxaan ka codsanayaa madaxda Soomaaliyeed ee saxiixa iskale inay hawshaasi ay si wanaagsan ay uga gudbaan bulshada Soomaaliyeedna u adeegaan maxamed waa markaaga ruuxu horta markuu wax saxiixo amba garuub ha noqdaano amba ruux kaliya ha noqdaane bulshadii ayaad magaceeda wax ku saxiixda amba aad matashaba marka waxaan qabaa waa laydin wakiishay waxna waa saxiixdeen waxaad saxiixdeen ka mira dhaliya oo arrinta ka dhabeeya ayaan idin leeyahay waayahay marka arrintan si looga gudbo wax loo baahan yahay dhinacyo badan aan ka eegno ma jiraan haba yaraatee waxaad ka cabsi qabtaan oo aanan suuro gelin karin waqtigii lagu ballamay inay ballantu fusho cabdiqaadir waa dhici kartaa bismillahi raxmaan raxiim waxaa laga yaabaa in waqtigii sidii loogu talagalay in ay kadib dhacdaan waa dhici kartaa in ay kasoo hormartaan waa dhici kartaa waayo sidaa darteed howlaha maanta yaalan howlo adag waay dal 20 sano burbursan yaa wax loo sameynaya howl loo sameynaya dowlad ku meel gaar inay ka baxdo la doonaya oo dowlad kale oo looga guuraya marka taas ayada waxay macnaheedu waxaan filayaa aniga in si dhaqsi ay ku fududaato waa dhici kartaa in ay macnaha ay way dhici kartaa cabdilaahi ayaan le waxaan u malaynayaa hawshaasi ma wada qabsoomi karto ana aragtidayda balse in badan ayaa ka qabsoomi kartaa waa haddii hawsha daacad laga noqdo waa haddii saxiixayaasha iyo bulshada dhammaan ay si niyo furan hawshaasi ay u qabtaan wax badan baa laga miro dhalin karaa yaana la is oran waqtigiiba ciriiri ah wax qabsoomi karo ma laha hawshaha la guda galo intii qabsoomta ayaa muhiima inta dambe dib baa laga sixi doonaa waana qabsoomi doontaa anigu waxaan leeyahay diidmaasa sii mayno marka waxaan rajaynaynaa in wax walba sida loogu talagalay oo ku dhammaado dadaalka socdana haatan aadaan ugu faraxsanaa waayahay dadka dhagaysanaya barnaamijkan ee laga yaabo inay haddoo kale la qabsadeen ama xoogaa la socdeen sidaad ugu sheegi lahayd cabdiqaadir haddaan adig kaa bilaabo sida looga gudbi karo waqtigan kala guurka ah si nabadgelyaana looga samata bixi karo bismillahi raxmaan raxiim waxaan dadka dadweynaha u sheegaya dad baan dhageysanaya ama dad baan dhageysanaya waxaa loo gudbi karaa Soomaaliya uma baahno dagaal dhib badan bay soo martay mashaakil fara badan bay soo martay waxa la sameeynaa waa in laga qayb qaataa kan dawladda ku jiro iyo kan banaanka taagan in ay ka qayb qaataan
oo macnaha la geed nabad lagu dhameeyo oo loo istaago oo maaragta shacabka Soomaaliyeed meel kasta jooga ama hogaamiye kooxda noqdo ama xildhibaan noqdo arintan in loo istaago oo gacmaha la isqabsaasaaso laga bixi karaa waxaan u sheegayaa bulshada Soomaaliyeed oo ina dhageysanaysa maanta guul baynu ku taagannahay guushaasi waa guul ay dhaliyeen dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay hal is garab istaago madaxda ama dadka hawshan loo dhiibo maanta daadihinayo garab bay u baahan yihiin yaanan ayaga kali lagu daynin hala garab istaago hawshaasi hana laga miro dhaliyo maxamed horta adduunyada dowladaha dhisan haddii iban dagaal dhaco ama way kala adkaadaan ama way isu tanasulaan Soomaaliya waa kala adkaawayday marka hadda waxaan leeyahay alla isu tanasulo waxay taagan tahay waqtiga ay isu tanasuli lahaayeen waana maasandiid fursadda habiya ma idinkaga muuqataa arrintan hadda xilliga lagu jiro sida caalamku heegan u yahay in shirkii ugu horreeyay muqdisho uu ka socdo qof kasta Soomaaliya uu tagi karo xamar ay maaragtay howlihii laga fulin karo wax rajaa ama fursada oo maanta la haysto oo idin muuqda ma jiraan oo ka duwan waqtiyadii hore waxaan ku bilaabaya Cabdiqaadir bismillaahi raxmaani raxiim waxaan leeyahay fursad baan hortaala oo dahabi oo qaali ah Soomaalida meel kasta oo joogto horta waan salaamay dhamaanteed laakiin waxaan leeyahay fursad qaali baan hortaala fursadaas yaa ka bixi kara waxa ka bixi kara dalka kuwa joogan iyo kuwa dibadda joogan waa inay gacmaha isqabsadaan oo colaadda iyo qabiilka iyo qurunka iyo baqtiga 20 sano ay la daala dhaceen waa inay iska hilmaamaan sidaas horumar iyo barwaaqo iyo barar lugaar ka waayo anaga dawlad baan u baahanay dawlad ku nool baanahay manihin dugaagta meeshii ay ku oomaan inta ka guuraan meeshii ay barwaaqada ku ween u guuraan kaana ma xawayaanka ayaan noqonay oo macaan 20 sano ayaan dawladaan marka anigu waxaan dhihi lahaa fursadaas qaaliga oo hortaalo Soomaalida maanta gacmaheedii yaa wax loogu dhiibay oo la kortaagay oo beesha caalamka ay garab taageen oo garab siinayeen waxaan dhihi lahaa arrinka asaga la soo dhaweeyo oo macnaha laga qayb qaato oo macnaha waxaan dhihi lahaa loo istaagan dhihi lahaa meel kasta oo joogtiin ma idin muuqataa fursad aad isleedihiin waa muhiim in laga faa'iidaysto oo aan weli hore loo helin waxaan weydiinayaa Cabdirabbi waa maasanta ayaan le walaalo waxaan u malaynayaa fursadda maanta Soomaalida oo hortaalo waa fursad aad qaali u ah waayo waxaan ognahay 20 sano la soo dhaafay mar walbo caalamku uu yiraahdo Soomaaliya ayaa wax loo sameeynaya ama Soomaalidu ay yiraahdaan wax baan sameysanaynaa dalka dibadiisa ayaa wax lagu soo dhodoobi jiray maanta caasimadeeni ayaa la isugu yimid caalamkiiba inoo yimid marka waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqaya fursadani waa fursad qaali ah walaalayaal hal laga faa'iideysto hal la iska ilaawo difference-ka iyo waxyaabaha yar ee Soomaalidu ku kala maqan hal la iska ilaawo fursadan waa fursad qaali ah hal laga faa'iideysto maanta waxaan u malaynayaa Soomaaliya waxay u baahan tahay dad daacad ah rag hawsha loo dhibo daacadka ah ayay u baahan tahay waxaan ka wadaa ragga maanta howlwaneedada ah anigu aragtidayda way dadaalayaan laakiin taas macnaheedu ma aha inaysan ay lahayn dhaliiluhu waa wax la sixi kara raggaasi hala garab istaago Soomaalidu siday maanta ay guul ku hanan lahayd waa fursadaas qaaliga ee maanta hortaalo oo ay ka faa'iideystaan waayahay maxamed aad baad u mahadsantahay horta waxaan u malaynayaa Soomaalidu inay marka iscafiyeen sababtoo ah waa markii yacni maaragtay la eego kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga dadku aaday u bislaadeen aadayna u soo dhaweynayaan arrimaha hadda taagan oo aad ugu faraxsanahay marka waxaan rabnaa Soomaalidu meeshay colaadda ka hor jireen iyo qabiil iyo balaayo kale hadda kadib inay ku fikiraan ninka leadership-ka hogaami doono kuma uu naqad doona marka inay ka fikiraan inay Soomaaliya u doortaan nin initiative oo bulshada samata bixi kara haddii Soomaalidu sida hadda la qorsheeyay ay u fulin waayaan qorshahan loogu talagalay ku meel gaarka in laga gudbo oo caqabad noqoto Soomaalidu inay dib uga dhacaan maxaa dhici kara bay idin la tahay Cabdiqaadir aan ku bilaabaya bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin ayaan aad iyo aad baad mahadsantahay aniga arrinkaas waxaan ka muujinayaa dib u dhacaas hadda aad sheegto waxaan ka muujinayaa arrin qaab daran baan ka muujinaa waayo dal dowlad la'aan 20 sano oo mar kasta wax loo sameeyay waxay la keenaan diiday nin buu diiday waxaan hadda la sameeyay oo la leeyahay dowlad baa loo sameeyay kumeel gaarka laga baxay la leeyahay maanta waa chance Soomaalida janiska haday diido waxaan filayaa dalkaas inuu ku imaan doono shacabka inuu ku imaan doono
in dalka uu noqon doono lala wareegi doono oo dadka caalamka isleeyihiin dadkan maba astaalaan dowladnimo oo ay xawayaanka camal bay noqdeen soomaad garan marka saasaan aniga in macnaha aan jeclaan lahaa in macnaha arrinkan lagu xoogga la saaro sidii dowladdaas loo samayn doono iyo waxa loo samayn doono inay xoogga la saaro Soomaali meel joogto inay gacmaha inta isqabsadaan ay arrinka asagii ay xoogga saaraan saasaan aniga leeyahay niyadu khayr aan u sheegno yaanan isooran lagu guuldaraysan doono arrinkani waxaan anigu 90% aaminsanahay hawshan in lagu guulaysan doono tobanka soo harayna dib dambe laga sixi doono Soomaali maanta nabad bay u baahan tahay nabadii way u soo iftiintay waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed in jaaniskan aanayna isdhaafin haddii ay dhacdo in Soomaaliya jaaniskan ay ka faa'iideysan weydo waa nasiib darro waxaan u muuqataa 20 sano la soo dhaafay marxaladii lagu sugnaa iyo mid ka sii liidata in hadana la wajihi doono balse waxaan allaha weyn ka baryaynaa in aysan taasi dhicin oo ay hawshan sidii loogu talagalay ay u fusho Soomaaliduna ay danteeda garato ayna hawshan ka faa'iideystaan maxamed axmed taye insha Allah waxaan qabaa anigu jaanisku nabasteegi maayo wabillahi tawfiiq waaya marka su'aal ugu dambaysan rabaa inaan dhamaantiin idin weydiiyo waxaan ka hadlaynaa caawo dhan waa sidii loo xilligan kala guurka ah looga gudbi lahaa oo waqtigu uu ku hirgeli lahaa sidii loo qorsheeyay in lagu dhameeyo 20 August dhamaanba marka Soomaalidana waad ogtihiin waqtiyo badan baa shirar loo qabtay la isku dayay dhaliilo badan way iska jireen laakiin hadda marka la eego dadka dib ugu laabanaya Soomaalida ah qof kasta diyaar mu yahay inuu taladiisa iyo xoogiisa ku biiriyo sidii waqtiga looga gudbi lahaa waxaan ku bilaabay Cabdiqaadir bismillaahir rahmaanir rahiim ayaan aad iyo aad bumaasan yahay waxaan aaminsanahay Soomaalidu maanta inay bislaatay oo dagaal ka daashay oo la rafaaday oo la baabay oo jab iyo halaag iyo waxaan loo joogin Soomaalida ay kala kulmeen dagaaladii iyo dhibaatadii maanta qof kasta oo Soomaali wuxuu ku leeyahay waryaa dalkeena nabad noogu dhigaa qof kasta oo Soomaali maanta wuxuu leeyahay dawlad halakeen wax kasta haatee waan garab taagnahay yay Soomaalida ay leedahay marka waana sax waay Soomaali meel kasta qaxooto ay ku tahay Ameerika qaxooto ku tahay Afrika qaxooto ku tahay maanta hadii wax wanaagsan la keeno cid diidaysa ma jiraan cid kasta Soomaali waxay leedahay waan garab taagnahay waxaan filayaa in la garab taagnahay ayaan loo wal mahadsan tahay Soomaalidu waa ay daashay waxaan ka warhaynaa caalamka daafihiisa meel walba Soomaalidu way ku ildaran tahay ku dayacan tahay maanta waxaan ka warhaynaa Soomaaliya meel walba oo nabadgelyo ay ka jirto in ay umadi dib ugu laabanayso waxaan ka warhaynaa xamar in dadkii ay ku socdaan dadkii markay dibadaha Ameerika iyo Yurub iyo ka soo dalxiisaan Afrikadan kale soo gali jiray maanta ma iimaanay hayaan waxay toos u aadi hayaan xamar taasi waxay ku tusaysaa in dadku ay diyaar u yihiin inay dalkoodu dib ugu laabtaan haday nabadgelyo jirto marka waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkeenni nabad baa ka jirta dawlad baa inoo dhalatay dawlad wanaagsan ayaynu sugaynaa inay inoo xigto dawladan hadda jirta dalku dib loogu soo noqdo dadka ayaa dalka dhisaa dalku hadii dadkii ay ka wada hayaamaan yaa sugaysaa inuu dalka adiga ku dhiso dalkaagu waa inuu adiga aad dhisataa shakhsi walba oo Soomaaliyeed oo aan aniga ka koow ahay waxaan ugu baaqayaa in dalkii dib loogu laabto dalkii dib loo soo nooleeyo aad baad mahadsan tahay maxamed axmed haye Soomaalidu way bislaatay inay wax qabsadaan waa rabaan oo rebuilding ay ku sameeyaan wadankoodii special dadka qurbaha ku nool oo anagu ka midnahay wax badan noo qorshaysan inaan anagoo iska soconno aan tagno ma rabno laakiin waxba noo qorshaysan inaan wadankii aan dib ugu soo noolayno dhan kastaba ha noqotay waa tahay dhegaystayaal intaasi waxay noogu idlaaday barnaamijkan oo aan maanta kaga doodaynay ka gudubka kumeel gaarka iyo waqtiga lagu hirgelinayo waxaana sidaad maqlayseen igala qayb galay maxamed axmed daahir oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Kampala kana baxay jaamacadda Makerele ee dalka Uganda Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ah siyaasi iyo Cabdilaaah Cusmaan Maxamed oo kamid ah ururada bulshada rayidka waayaan la Xuseen Cabdi oo idinkaga mahad celinaya dhageysiga barnaamijkan intaynu dib isku maqli doono waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo barnaamijkan waxa soo saaray Aamin Media Limited wa iska shiko wanimo wa adeeg bulsho
sugan Amin Media